turkiga oo cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay afgambiga Tunisia. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa ay muujisay walaaceeda qotada dheer ee ku saabsan xayiraadda shaqadii baarlamaanka ee Tunisia. waxayna wasaaraddu si gaar ah ugu muujisay bayaankeeda rajada ay ka qabto in dib loo howlgeliyo nidaamka dimuqraadiga ah ee dalka. wasaaradda ayaa cabirtay inay aad ugu walwalsan tahay ilaalista baarlamaanka oo matala rabitaanka shacabka Tunisia, iyagoo rajaynaya in dib loo soo celiyo sharciyaddii ku salaysnayd qodobada dastuuriga ee dalkaasi. kulan degdeg ah oo uu qabtay madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ay ku ehliyeen hogaamiyaasha amniga iyo militariga waxa uu ku dhawaaqay in la xayiray dhammaan awoodda golaha wakiilada baarlamaanka, isaguna uu la wareegay awoodda fulinta. Saciid waxa uu kaloo go'aamiyey intii kulanka uu socday in xasaanadda laga qaaday dhammaan xubnaha baarlamaanka Tunisia lana xayirayo dhammaan awoodda golaha wakiilada. Qays Saciid waxa uu qiil ka dhigtay in go'aamadan uu qaatay kadib markii uu la tashaday ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Rashid Al-Ghanouchi, madaxa xisbiga Al-Nahda. waxa uu tilmaamay inuu qaadan doono go'aamo kale ilaa nabadda bulshada lagu soo celiyo dalka. go'aamadan waxay ka yimaadeen madaxweynaha Tunisia kadib markii isku horimaad uu ka dhacay caasimadda Tunisia iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo u dhaxeeyay booliska iyo dibadbaxayaasha oo ka dalbanaya dowladda inay iscasisho xukuumadda lana kala diro baarlamaanka dalka.